السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتك وحيران كنالك برادو بلشة سو دوادا مقالكنا تدوبادكم waxaan ku eegaynaa sidaad xirfadda dhageysiga ama listening skillska uga baran karto website-ka British Council waxaan u qaybin doonaa muuqaalka saddex qaybood maadaama uu yara dheer yahay qaybta koowaad waxaan ku eegaynaa sida ugu diyaar garoobi karto casharka ama waa preparation section qaybta labaad waxaan ku eegaynaa ama ku sharaxaynaa casharka naftarkiisa ama waa lesson section qaybta saddexaad oo ah qaybta u damaysana waxaan ka wada shaqayn doonaa weydiimaha ka yimi casharka ama waa task section saddexda qayboodba waxaan soo gelin doonaa toddobaadkan gudihiisa haddii alle idmo ila socod wanaagsan dhammaan asxaabteena saaxiibayaal muuqaalkan waa qaybtii saddexaad ee sida xirfadda dhageysiga ama listening skillska uga baran karto website-ka British Council qaybta koowaad waxaan kusoo aragnay sida casharka ugu diyaar garoobi karto inagoo aragnay dhammaan ereyada muhiimka u ah inaad casharka fahanto qaybta labaad waxaan kusoo aragnay casharka naftarkiisa inagoo soo sharaxnay qaybtan maanta waxaan ku eegi doonaa task section waa qayb loogu talagalay bal inaad istijaabiso casharka inaad fahantay iyo in kale dhammaan casharada ku jira website-ka qaabkaas ayay u diyaarsan yihiin preparation section task section iyo lesson section marka waxaan kugula talinayaa inaad soo daawato qaybtii koowaad iyo qaybta labaad markaasna aad soo gudubto qaybtan okay waxaan rajeynayaa inaad fahanteen qaybta transcriptiga marka dabcan qaybtan waynu ka gudbaynaa waxaynu u gudbaynaa task 1 ama shaqada koowaad bal si aynu u eegno inaynu fahnay casharkaas iyo in kale marka waxaynu imanaynaa qaybtan add the sentence true or false wuxuu ku leeyahay sentence-kan soo socda ama jumlooyinkan soo socda ama weedhahan soo socda ma kuwa run ah mise waa kuwa been ah marka loo eego dialogue barnaamijkaas aynu maaragtay kasoo sheekeynay marka number 1 wuxuu leeyahay the interviewer finds speaking the most difficult qofka interviewerka ama presenterka inuu kusoo aragnay wuxuu u arkay speakingku inuu yahay kan ugu adag marka uma uusan arkin isaga waxa ku adkaa listeningka sidaan sheekada kusoo aragnay Gabriela thinks in some situations people can find speaking easier than listening Gabriela wuxuu u malaynayaa xaaladaha qaybtood dadku inay u arkaan speakingka ama hadalka luqaddu inuu ka fudud yahay listeningka taas waa true marka loo eego sheekadii aynu kasoo sheekeynay okay according to the interviewer asking for someone to say the same thing again is one way to solve the problem okay interviewerku waxa la yiri wuxuu arkaa qofka in la weydiiyo wuxuu yiri ku soo celi qayb kamid ah halka maya taas waa false sababtoo ah interviewerku wuxuu lahaa I feel sorry baan dareemaa markaan leeyahay qofka can you repeat that please again markuu lahaa can you repeat that again markuu lahaa waxa weeye waxaan dareemaa buu yiri I feel sorry marka saas awgeed waa false qaybtan okay Gabriela recommends pretending to understand if a conversation is too difficult. waxa la yiri Gabriela macallinkii Gabriela ahaa wuxuu recommend gareeyay inaad ka soo qaado inaad fahantay haddii conversationku adag yahay waa false sababtoo ah laba istiraatiijiyadood buu siiyay istiraatiijiyadii koowaad waxay ahayd pretend to understand inaad ka soo qaado inaad fahantay tan labaadna waxay ahayd inaad soo koobto tan koowaad macnaha waa markaad bus stopka joogtid oo kale qof markaas strange ah oo idin is aqoon aad markaas la sheekaysanayso markaas wax dhiba ma lahan inaad ka soo qaado nafsadaada wuxuu leeyahay inaad fahantay tan labaad waxay ahayd wax muhiim ah ama hadda tusaale ahaan halka wuxuu ku jiraa too difficult wax adag oo kale oo aanan ka tagi karin markaas isaga waa summarize baa sameynaysaa okay Gabriela strategy for managing important conversation sounds strategy to the interview at first okay wuxuu leeyahay interviewerka wuxuu la muuqatay wada hadalku qaabka loo xakameynayo maaragtay istiraatiijiyada Gabriela khidada uu soo jeediyay oo lagu xakameynayo wada hadalka muhiimka ah waxay la muuqatay marka koowaad mid qariib ah yes that's right Gabriela's idea involves asking a lot of questions Gabriela Gabriela's idea involves asking a lot of questions
also that's true. Okay, let's check inay saxan yihiin qaybtan finish baan click siinayna. Okay, marka task number 1 waan dhamaynay dabcan. Task number 2 baynu u gudbeynaa. Task number 2 markaan u gudubno waxaa layna leeyahay match the expressions to their meaning. erayadan maanta waxaan haysanaa expressionska waxaynu ku aadinaynaa waxay isku macnaha yihiin. expressionska waxay isku macnaha yihiin baynu ku aadinaynaa. number 1 wuxuu leeyahay I can't think. ma fikiri karo. macnaha markuu lahaa my brain shuts down. Okay, I want to be upset. ma noqonayo qof ka xumaada. I can take it bay isku macnaha yihiin ama waan qaadan karayaa. I wanted to escape. waxaan rabaa inaan cararo. I wanted to get out of it. waxaan rabaa inaan ka baxo. Okay, taas isku macnaha yihiin. I was really nervous. Okay, or afraid. waxaan ahay qof aad uga xun. Okay, waa tan markuu leeyahay I come out in a cold sweat. waxa iga yimid dhidid qabow. macnaha waxa aad ka uga xun tahay markaas. I still don't understand. weli ma aanan fahmin. waa I am still lost. isku macnaha yihiin. I understand what you are saying. waan fahmay waxaad leedahay. I get you. I get you. I understand what you are saying. waan fahmay. Okay, marka finish aan dhahan. Okay. qaybtaana waan dhamaynay waan ku guuleysanay. marka dabcan mawduucaas waan dhamaynay intaas ayaan ugu muhiimsan. Okay saaxiibayaal intaas ayaa ugu muhiimsan. listeningku wuxuu ka mid yahay qaybaha ugu muhiimsan ama qaybta ugu muhiimsan markaad baranaysid luqad cusub. sida ugu fudud oo luqadda lagu baran karo waxaa ka mid ah marka koowaad inaad luqadda iska dhistid dhegeysiga. marka luqad la baranayana waa taqaaniin carruurtu markay luqadda baranayaan lambar 1 way dhageystaan waxa dadku ay leeyihiin kadib bay weelayaan. dadka inta badan ku takhasusa barashada luqadaha waxay aad u recommend garayaan qofku marka koowaad inuu iska dhiso listeningka. siyaabaha ku baran karto waxaa ka mid ah inaad dhegeysato waxyaabo fara badan. luqadda Ingiriiska oo kale haddaad tusaale ahaan movieska haddaad daawatid ama filimada oo kale waad ka baran kartaa. waxaa ka baran kartaa inaad YouTube-ka casharo kala duwan fieldigaaga wax la xiriira inaad baartid kadibna dadka ka sheekeynaya inaad dhegeysatid. inaad maaragtay hadashid oo kale xataa listeningka qofka la hadlayso waa dhegeysanaysaa. marka qaybahaas qaybtan hadda British Council oo kale waxay ku siinaysaa basic guidelineska maaragtay ku siinaysaa aad iska dhisi karto listeningka oo ah qayb muhiim ah. qaybtan dhan waa free. aniga waxaan ku idhaahdaa qaybatan waxyaabo badan aan ka faa'iiday. guidelines strategies waxyaabo badan ku siinayaan. marka adiga waxa ka soo bilaabi kartaa from A1 to maaragtay C1 waqti badan kugu qaadan mayso. waqti kooban inaad siiso ayay rabtaa. waana basic guidelineska aad bay kaaga dhisayaan. haddaad rabto listeningka inaad iska dhistid oo kale waxa kuu furan wadooyin kale oo fara badan. marka saaxiibayaal aad iyo aad ayaan idinku mahad celinayaa. intaas ayuuna ku dhan yahay muuqaalka toddobaadkan qaybtan aan tusaalaha uga soo qaadanay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.